حل دوا ها إلهي أمرك سيب الوقت واكو جرنا محن كجرنا يوتيوب كذا ها تيفي يوتيوب waxaa ku bedelayeen TV-ga waxa waaye TV wuxuu u baahan yahay in kaamirad ku duubto wax ma saas kuma kala duwana laakiin wax yar kala duwan yihiin oo yani maya macnaha adoo TV-ga adoo fadhisid dhalada hor fadhisa hor ka daawanaysa laakiin kan waa inaad gelisaa soo duubtaa marka hore هي والله طبعا لايف اوكي اصحابتا وإذا سلامينا ميل والبو الدنيا كجوجتان وصاحبada ku xiran YouTube-kayga caawa Cabdilcasiis Axmed Barre wariyaha weyn abwaanka dadka ma gudirta adiga okay aan wariyaha ka yarahay diyaar waay caawa waxaan idin haynaa qiso cajiibkeeda leh aniga qisooyinaad iga barateen wixii qiso ahna indhahan ku hayaa عندها كويسة. ها ما بيدافع. واتقنا سيد الله كله مسكين. زائد. وحن إدين هنا قصة. محاوب حنا. فقير كي. نية سميدة كتاجر. وحقاد إيه قدم عوان كاس قاد إيه قدم. مركا أنا وحا إسرا صحابت هذا ما لو ذات فقير كي نية سميدة كتاجر. ولما شيء كذا أصحابتي أنا داونا يسوي واحد بدان أو بدان أكو كان دونتان. waxa uu sabir ku leeyahay qofka daacadnimada ahna waxyaabaha uu ka heli karo daacadnimadiisa iyo guulaha uu gaari karo intaba qofka haduu daacad yahay waa intaas fixiyad sheekadan waxay ku bilaabanaysaa waxay ahayd subax aroora nin ganacsada Soomaali ah oo magaalada Nairobi jooga sheekaduna waa dhacdo run ah oo biyo kama dhibcaan waaye wax badan ay tusmeyn doontaa ogaan doontaa idinkuna aad ka faa'iido doontaan haye waxay ku bilaabanaysaa ku heesaysa daacadi mahungoodo waxay ahayd subax aroor ah mid ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo hantida haysta ee basiyay Ilaahay ha u barakeeyo ayaa waxa uu damcay mid kale oo ay shaqo wadaag ahaayeen oo shaqaalihiisa kamid ah in lacag 40,000 oo shilinka Kenya ah وديره وليبا تلفون كو marka ma lacagti mishaarkiisa ka sameysay kulay holbo waday okay marka hawsha inuu ku fuliyo lacagta loogu diray 40,000 waayahay 40,000 dadkan Kenya joogin hadii aan u bedelno waa ku dhawaad $400 ama $400 iska dheh boqolkii dollar 10,000 iyo wax yar marka lacagtii waxa uu ku diray adeega loo yaqaan M-Pesa ayuu ugu diray ninkii ugu diray nasiib daro telefonkii oo saaxiibkii ugu dirayay baa number yar iska daba maray laba lambar is daba martay marka qof kale ayaa numberka watay lacagtii qofkii kale ay ugu dhacday 40,000 ee saaxiibkii u diri rabay qof kale ay ku dhacday meel kale aad waayahay waxay uu filanayay waxay ahayd in lacagtii la soo celiyo ama waxyaabo kale ay dhacaan ama dad kale uu wax ka weydiiyo laakiin Soomaaliba waxa iska shaqo badan durbaba waa uu hilmaamay aad oo wuxuu si alle ninka lacagta waa u dhacday ma sii fiirin shaqadiisa ka badnayd dan qiyaastii 3 daqiiqo kadib ayaa nin soo wacay waaya ninkii uu lacagta u diray ma ahanbay waa nin kale u madow oo lambar kale ka soo wacay waaya waxa la saaxiib waan ka xumahay aniga ma jirin cid aan lacag ka filanayay lacagtan aad ii soo dirtay miyay ka soo qaldantay maxaad ula jeeday waaw عجيب ninkii waa uu shakiyay balniyo ma ogiyaan xaqiijiyo inaan lacag ku soo diray in kale okay marka sida la socoto waxa jira koox duuga oo dadka soo waca oo dhahaya telefonkaada lacag baa iga soo gashay inuu soo celi waxaan u soo celi ama ku dhahaya lacagtii shalay aan ku dhiibay soo celi iyagoo marka ay ku tusayaan in ay wax un ka dhacaan iska tuugo waxa dhacda marka ninkii odaga ahaa telefonkiisa uu xaqiijiyay wuxuu dareemay numberka uu lacagta u wada mooyaan number kale إن العكس كقش. أفرتن كيكون. أوكي. نكيبه وعيوه حدا صاحب سوري وكحوم محي العكس هذيك كومانا وذن. عد كلا أي وجيدوا هيدنا نقدره. بلني هو العكس هذيك كوكس هرد على صاو عليه. هذه صوت ترتاع العك صوتني شنكونا وستح بقولي كنتن $. العكس شنكونا وكنتن $. مثلا هذيك حيصو. عجيب ninka lacagtii buu soo diray soddon iyo shantii kun soo diray marka hadana waxa filawa ku noqotay nin lacagtii aad lahayd ku sheegay hadana wixii uu kugu la balama sameeyay wuxuu isweydiiyay bal horta shakhsiyada noocaani ah
ninkana waa nin markaa tujaar oo shaqaysto ganacsada marka ninkan dib ugu noqo isla 35 kun ku soo celiyo shakhsiga noocan sameeyay sida u wanaagsan muxuu yahay balbaro farxiyo maxaa isdhihi kartaa ninkaas uu noqon karaya والله waxaan isleeyahay qofka lacagta ku dhacdo qof gobolkiisa iska joogo iska masaakiin ha haddaba ogow ninka lacagta ku dhacday oo soo celinaya waxa uu ku nool yahay okay ka tirsan gobolada dhexe ee dalkan Kenya kaaga sii darane waxa uu markaa la joogay lacagta ay u imaanaysa 3 neef oo lo ah 3 neef oo lo oo ilaalinaya oo ay qoyskiisa leeyihiin okay ninku ma reebadi waa nin aqoon-yahana oo xisaabaadka jaamacadda Nairobi uga baxay isla markaana sameeyay master wow waa nin master sameeyay jaamacadda Nairobi ku sameeyay baadiye 3 neef oo lo ah ku ilaalinaya shaqo la'aan dartii uga cararay magaalada Nairobi lacagta masterka uu ku bartay dawladda Kenya ayaa deyn ahaan ku siisay waa lacagta uu masterka hadda ku dhigtayba dawladda Kenya lacag la ku siisay deyn ku siisay oo inuu dib iskaga soo celiyo marka ninkii Soomaaliga ahaa ninkii buu wacay warnii isku ka sheeg buu yiri ninka horta isagoo aan ka dhexgalay isagoo master degree haysta ee 3 sacna ilaalinaya maxay tahay farxiyo waa isla doonasho ilaah ninkan master uu sameeyay wadogta Kenya lacag laga ma helo PhD ba matatu ka xaynaya baawartii dadweynaha markuu shaqo magaalada horta ka waayay miyigiisii cidii isaga laabtay hadduu ku noqdan 3 saac oo ay lahaayeen reerka ayuu maalinkii dul joogaa ilaa wiilka cidde okay marka ninkii waa soo wacay wuxuu yiri maxaa qabataa wuxuu dhahay nin noocaas oo xisaabaadka bartay oo master haysta oo ilaahay aqoon siiyay ku nool oo lacag laani ku dhacday ayaana wali wuxuu lacagta dawladda Kenya ay golaan shahaadada master ku haysto waxay ila sugayaan maalinkan shaqo helo dhahay in la iga jiro marka lacag buu u diray wuxuu dhahay bal AMO aan sheekaysano oo aan fadhi ku sheekaysanay wuxuu yiri gaari soo raac okay lacag iyo sahay buu u diray wadada uu ku soo maro lacag kala ahayd baawarkii uu soo raacay maalintii ka dambeysay waa Nairobi iskugu yimaadeen iyo bartamaha townka isugu yimid okay waa la sheekaystay waa la wada hadlay ninka Soomaaliga wuxuu ku dhawarnay anaaba dhibaatii haysatay oo xisaabaadkii waa sanad kasta waxba iga qasaara lacaga iga qasaarta marka waxaan ka dhigayaa hanti dhowrka shirkadahayga wow ninkii lacaga la siiyay meeqa loo ku kori karaa islaada ninkaas wallahi lacag iska yar ma loo qoray xisaabiyo sama $600 insha Allah qoray 60 kun oo lacag Kenya ah aadiya ayaa mushaar bishi loo qoray waa ninka 3 saac la jiray 3 saac la jiray oo shaqo waayo oo master degree na haystay okay marka farxiyo waxa dhacday ninkii shaqadii sidii la rabo uga soo baxay ninkii Soomaaliga ganacsigeena qusay wuxuu bilaabay inuu kor u socdo okay ninkii wuxuu gaaray ilaa Dubai inuu tago hantidii ninkii Soomaaliga soo xisaabo wow wiilkuna hadda waa Kenyan Soomaali ma aha marka waliba qomiyada kale Kenya Soomaalida ahayn waxa dhacda marka arintii markay sida sii ahaatay ninkii uu baxay Dubai uu tagi jiray lacagii buu xisaabi jiray dhismooyinka Nairobi uu xisaabi jiray okay markii dambe waxa uu noqday ninkii wanaagiisii quruxdiisii nolosha ninka Soomaaliga ee macaamilkiisa markuu u bagay inuu diinta Islaamka qaato wow oo muslim noqday ajaayib wuxuu ka yimid baahi wuxuu yimid shaqo wuxuu helay lacag haddana wuxuu ku darsaday iimaan sax diinta Islaamka inuu ku soo biiro okay waxay shaqadu sidii oo ahaa ninka odayga ahaa Soomaaliga ahaa da'da ka taba timi waxa ku adkaatay xisaabihi inuu galo wiilashiisii isaga la isbaray si fiican buu qoyska uga mid noqday deetana share baa laga siiyay ama saami ku yeeshay ganacsiga uu ka shaqeynaa okay wow maanta waa hantiilo lacag fara badan haysta waa nin muslim ah labo lacagtii deynta shahaadada uu iska bixiyay masterka okay noloshii adkeeda 3 saacadna waa laga yimi wow marka ilaahay wuxuu kula doono ya uu ku siinaya faqiirkii niyad samida ku taajir marka ninka waxa uu ku taajiray niyad samidiisa iyo hantidii islaameed ee telefoonka hadii maalinka 40 kun ama 400 uu intuu simikaarka iska bedelo lacagta haysan lahaa ama mudan lahaa lacagtaasi horumarka muusan gaarin marka shaqada maxaa laga dheehan karaa marka isweydii daawadaha aan halkan inaga la socda imisa ayaa qisa noocan oo kala aad ku soo martay ma islahayd
wax yar oo isxaana oo wax ka yar daqiiqad aad samaysa ayaa noloshaada oo dhan bedeli karaysa bal ka sheekay haddii mas-uul qaran aad noqoto oo hantida dadka lagugu aamino oo aad u xilato iyo ninka noocaa sameeyey ee heerkaa yimi maxaa la oran karaa ay ku kala bedelan yihiin farqi weyn aad u weyn ma dhihi karnaa qofka noocaan noqday waa hogaamiyaha dhabta ay Afrikada u baahan tahay aad iyo aad wax badan ayaa wax yar oo xilato ku daba marin karaan wax badan oo kugu soo socda ay wax yar ku daba marin karaan marka dantaada iyo tan dadkaada iyo adiga waxa ku jirtaa inaad noqoto daacad ilaan daacad muhiimkooda waa ka marka muuqaalkan intaasaan rabnaa inaan ku soo xirno sheekadan aaday hore iigu cajabisay anna waxaan isla asxaabtaada uga faa'iiday faqiirkeena iyo samida ku taajiray marka saaxiibada badan halkan daawanaya waxaan leenahay horta hala share gareeyo muuqaalkan comment like hala siiyo channelkan farxiya iska leh wuna cusub yahay dee kuma subscribe kana ku dhufo soo waka wixii aan dhiiraada ii dhahay laakiin sheekooyinka badan annagaan ognahay ayaad adi og tahay bal marka waxyaabay kuugu yaabadnaa adigoo ka hadlaya daacadi waxay tahay commentiga ku reeb halka hoos noogu soo reeb aad baadna u mahadsantihiin sida aad inoo daawateen nabadgelyo